أبشر بعدل أبشر نور فرح وهلية قاع الخير أفرح بالي هذا وحوها صدحت المعمود الله إلهي إحسان بدنو أرحم الراحمين لهبو الدون كاقيان أهي أبالكو مقودي كرو أودنا عديسكاله أبوركي كوباد أولكي بالداية هدون أضعر لأهي إلى أوركي هو يدي الدنيا دا إنتان جري أدقي أرزق جري الدوم أنا وحكم هلين إحسان كاغماهن أرحنك لنسوق ما آخرنا كسيدرا إن وحن أركي 19 سنة دائسو أي شوكتو جارتي أو أي وائس يقانين مركي أنا سلامني أي سؤالي وحن نقص دحق لي أبشر بعدله أقون هران إنك أسكمان لما قصوي ويلي أبشر بعدله إلهي ونحرسته شنشر أيام كل رياضي أستجوب شنو ذا كتير دعوة الصومالي ده وذوقتهينه نينك الدور كآت كأقيمها بدن كقاتي وحو نينك الذي يشتري أبشر بعدله إلهي تبارك وتعالى قبره هو أسعيه هنا النوريو هلا نحرسته جندي سفردوسن الله جيو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يسود هذا الله ينبركيه أدبن كوم هذا علينا ملك استود أدونك جوكتان دعادينا تلذينا عقلنا مسكحدينا قراتكنا لما أنتين وحن لنا أدبدو ما سنتين تلوين كنسيسين كل جين واتكم ما سنتين سيدا أشياء قرين إنسان أو لاقى أسار إنسان واتكم ما سنتين هذانا هلا سيشة قريو maadaamaad ciwaankii iyo khayrkii meesha ku soo aragteen waa intii unbu ku saabsanay idanka alle barnaamijka aan maanta jeclaanay inaan bulshada Soomaaliyeed uga faa'iideyno wuxuu yahay barnaamij aad u macaan badan aad u qurux badan bulshada Soomaaliyeedna aad u xiisaynayso waa barnaamijkii aan alaaba aan ku wareysan jirnay culimada Soomaaliyeed aan kaga warrami jirnay taariikhdooda taariikh nololeedkooda kuwa nool iyo kuwa dhinta insha Allah ta'ala waxaan jecelnahay barnaamijkan maanta inaan ku qaada dhigno ugu warrano taariikh aad loo jecel yahay nin aad loo jeclaa gabiya dhinac ka ahaa culimada Soomaaliyeed qayb kamid ahaa in badan gabiyadiisa lagu raaxaysto markuu khayrka kaga warramayo iyo markuu qabyaaladda kaga warramayo inta badanba marka maanta waxaan jeclaanay barnaamijka qiimaha badan oo igala qayb galayo Sheekhana Al-Faadil Sheekh Maxamed Macalin Abshir برامج وإجناء قريب قالوا برامج كاسو نين أوضاع تقانان تاريخ ديسا أنك ورميدونه وأبشر بعلي إن بدنتك ويقانان وأبوان وقبيا وشيخ علماء الصوماليين إن بدن كمدها شيخ أنا أرتمرك وسودو مرحبا بك أهلا وسهلا بارك الله كبركيو إن أبشر بعلي أبوان صوماليات قبياءها علماء كمدها قرابو واتهين in badanna waas aragteen uuna kugu dhiirigeliyay culumta iyo diinta asana in badan saa ii sheegtay dhiirigeli ku ahaa marka taariikhdiisii intaan dhalinyarada Soomaaliyeed soo gaarin ama dadka Soomaaliyeed intaan arkin maxaad naga xasuusin lahayd taariikhdiisii waxbarashadiisii iyo meesha ka soo askunta soo dhaw الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أبشر بعدله أبشر نور فرح وهلية قاع الخير أفرح بالي هذا وحوها صدحت المعمود الله وحوها نين كان عصداءه أو ديخسئة وحوها نين علماء الصوماليات كمدة وحوها أبوان شاعر الموحدين وقبياء أيها ده أهاني وين بوها تطوعتني كبدا بقول انتي إلهي ونحرسته أبشر علوم تشرعي قيبانا دلكو كبرتي قيبانا حقا يعرفت مركو تغي أو كنا ولا سعودي أو تشوغي بو عرفتها كفائدة استي gabagiisa hadaa fiirisid oo nuuciisa kala duwan waxaad arkaysaa ninkaani aqoonta uu lahaa oo diinta uu lahaa iyo sidoo tafsiirka quraanka u fahamsanaa iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam baa wax weyn oo weyn ay kaaga baxayaan cimrigiisa wuxuu ku qaatay
inuu dacwada iyo diinka u faafiyo uu ku faafiyo dhaqaalihiisa iyo maalkiisa maadaama nin ganacsado hantila uu ahaa uu ku faafiyo lisaankiisa oo gabayga ah weliba oo aad iyo aad ugu caan baxay wuxuu ka gabiyey oo aad uga hadlay dhinaca khuraafaadka iyo bidcada dadka ku batay wuxuu ka hadlay dhinaca akhlaaqiyaadka daroogada iyo jaadka iyo waxa dadka baabi'inahaya wuxuu mujtamaca ka daweeyo gabaygiisa ku daweeyay in badan oo kamida qabyaaladda iyo qurun inay tahay iyo dhibaatada bulshada ay ku leedahay wuxuu bulshada ku booriyay oo kala hadlay qabriga iyo qiyaame iyo dhimashada inaan la iloobin la xasuusnaado wuxuu ku soo gabagabeeyay gabaygii khaatumada wanaagsan ahaa ee maalinka uu dhintay idaacadaha laga soo daayay oo qabrigiisa iyo dardaaranku kaga tegay ahaa oo qabrigiisa u gogol dhiganahay abshir nuur faarax anugu qaraabo aan nahay laakiin qaraabada aan nahay ka sokow barashadiisa muddo dheer baan isnaqaanay ilmihiisa waxaan u ahaa mucallin qur'aan oo quraanka u dhigi jiray gurigiisana in badan ku noolaa wax badan oo khayr iyo wanaaga baan ka dhaxlay ilaahay khayr badan Allah siiyo wuxuu ahaa dareenkiisu asaga bulshada adeegu u adeegahayo dhinaca samafalka masaajida iyo madaarista iyo masaakiinta oo la caawiyo wax aad iyo aad aan la soo koobi karin ayuu ahaa ganacsatada suuqa bakaaraha ayuu kamid ahaa nin kamid ah wuxuu igu yiri markuu naga dhintay agoon baa noqon bakaaraha wuxuu magaalada markuu magaalada wixii la sameeynayo oo masaajid la dhisayo iyo khayra asaga hogaamiye noo ahaa dadka subaxdii suuqa u soo shaqo taga waxa kamid ahaa hooyooyin masaakiin ah marka dambiil bay dhabarka ku qaadaan dadkay waxay alaabaha gadgataan bay tunka ugu xamaalaan oo dambiil intay ku qaadaan bay guryaha u geeyaan wax yar ka qaataan marka dambiishaas ay wadataa suuqay wareegaysaa markay timaado galabtii markay tahay qoraxdu sii dhacayso suuqa laga tagahayo qaarkood ayagoo waaye waxay qaadaan ay meelaha iska farfariistaan wuxuu yiri intuu naga soo aruuriya lacag 100 kun oo Soomaaliya ah oo soo qaado buu lacagtaas intuu la dhex maro hooyooyinkaas dambiishiisa ka la soo kala waxay qaadaan waayay ayuu dambiisha iyadoo sii jeeda 100 ugu tuuraya saa ugu tuuraya baa wuxuu yiri maalin buu anagu isla soconna qof miskiin ah ayuu wuxuu soo bixiyay lacag yar meeshii 2 kun oo shilin Soomaaliya iyo $1 wax la mid ah la siin lahaa ayuu $100 oo lacag ah buu saa ugu soo bixiyo si markaas aan ka qabto waxa ismoodabiyo inay ka qaldantay $100 way war lacagtu waa $1 weey markaas wuxuu yiri waa run waalidkay baan u baxay nin mashaayikhda waaweyn duruusta akhriya cilmiga kamid ah wuxuu ugu yiri habeenkan dhageysto gabaygiisa uu kaga waramayo tawxiidka iyo wahdaaniyada ilaahay oo kaga digayo khuraafaadka bidcada habeenkan dhageysto habeenkaas wuxuu yiri si fiican hurdada wuxuu yiri caad u masaajisa ugu fakarayo isa ugu hilowsanahay isa u jeclahay nin waxaan arkay 90 sano daadiisu ay joogto gaartay oo ay waa is yaqaaneen markii aan is salaanay ayaa su'aalihii waxa naga soo dhex galay abshir bacadle aqoon horena ninka Usmaan la markaas wuxuu u yiri abshir bacadle ilaahay u naxariisto 5 jeer ayaan ku riyooday asagoo jannada ku jira nin kale iyo nin kalena sidaas oo kale yiraahdeen lisaanka ummaduna waxay uga marxaati kaceen inuu ahaa nin bulsho nin ummadeed ee uusan ahayn nin koox nin qabiil nin qoys inuusan ahayn bay uga marxaati kaceen ولذلك waxyaalaha acmaasha khayriga in laga shaqeeyo ah dadkii bilaabay buu kamid ahaa inuu hogaamiyo abaaruhu markay dhacaan dadka in loo gurmado wadooyinka in la sameeyo masaajida in loo gurmado masaakiinta in loo gurmado wuxuu kamid ahaa dadka runtii aan dhihi karo waa 1 iyo 2 oo waxa weeyaan bulshadu ay fiirsanaysay buu ah ma min ahad qof loo sheega ma jiro ilaa waa u duceeyaa أولاد فربضان بودالي إلهي أولاد يسكوها جاكسن وبركس الله كله صدن يدور بجاريان أولاد يسو أنتوا أصور دالي بنشيجيا كويس دالي الماء كو أصور دالي صدن إياه صد حين يجيب بنفليا أنتي مركي ودنتي أنتوا نو أنت نولي قرابة فربضان أيوك عن قبتي
masaakiin badan buu garab istaagay ilaahay subxaana wa tacaala qabrigiisa allaha u nuuriyo aniga laba arrimood buu saameyn weyn iigu lahaa dhinaca gabayada oo tawxiidka ah oo dacwada ah aad iyo aad buu saameyn weyn iigu lahaa bilowgaygii hore markaan dhegaystay waaqicana aan ku miisaamay wax weyn oo weyn bay noloshayda ka bedeshay wuxuu kaloo saameyn weyn iigu lahaa runtii xagga deeqsinimada waxaana ku xasuustaa deeqsinimadiisa waagii ugu horreysay qur-aanka ilmaha aan ugu bilaabay 92 bay ahayd taqriiban anugu nin dhalinyaro ma reerna ma lahayn gurigiisaan imid wuxuu ilmaha qur-aanka igu dhigay ilmaha qur-aanka ugu dhigay markaasuu laba mid kala dooro in aan mushaar aad ku qanacsan tahay kuu qoro oo ku siiyo iyo ina waxaan kuu garto aan ku siiyo markaas waxaan ku yiri go'aan baa ka soo gaaraya nin asaga ganacsada la ahaa oo is yaqaaneen oo saaxiibo ay ahaayeen aniguna aan qaraabo ahayn baan weydiiyay waxaan iri ilmaha quraanka igu dhig buu yiri abshir bacadle labadaas mid kala dooruuna yiri kay igula talin lahayd inaan mushaar sheegto aan ku qanacsanahay inuu wax ii garto markaas wuxuu igu yiri waxaan kuula talin lahaa inaad tiraahdi waxa ii garatid waayo waxaan ogahay deeqsinimadiisa waxa uu ku gartaa ka badan mushaarka soo asheegto ku heshiisaan markaas waxaan ku iri sidaasaan doortay ficlan sidii bay noqoto oo waxay noqotay mushaarka wax ka badan oo ka badan oo ka badan inuu deeqsinimadiisa ku bixiyo rahimahullahu rahmatan wasi'a ilaahay uu naxariisto qabrigan allah uu nuuriyo ilaahayna durriyadiisa ilaahay uu hagaajiyo dadka maanta u ducaynahaya abshir bacadle hooyo waxaan arkay 20 sano dhaaftay oo baadiye joogta oo jiran oo xanuunsan oo gabigiisa dhageysan jirtay oo mar allaaliye marka la soo qaado laga yaabo inay ilmeeynaysa qabrigu waliba gabayga uu qabriga uga hadlay iyo meesha la dhigahayo iyo dadku inay ka gadoomahayaan ka tagayaan alaabadana qaadanayaan ilaahu meesha iska aalo iyo itaal xumideeda iyo mataqaan aqoon horena meesha umalihi iimaanka mooy aqoon hore umalihi irid laga baxa male meeshan aali itaal xumideeda arintaas marka runtii qofka muslimka uu dareemo oo gabaygaas uu aad u dhageysto aadna tasawuratid xaaladda uu ka sheekaynayo laftigeeda markaa suuraysatid waana kugu filan oo kugu filan oo kugu filan oo kugu bixinaysa weeye ina ilaahay xiriir la yeelatid ina ilaahay u toobad keentid inaad ku didaashid ina qabrigaas amal saalix la gashid waayo waxa ajiib ah ninkaas dad badan waxay dhihi jireen wahaabi waa bid wahaabi dhihi jireen laakiin waxa u marqaati kacay zamanka iyo hadaladiisi iyo qabrigiisi iyo maxabada soo u jeclaa diinta islaamka iyo nabiga soo u jeclaa sallallahu intaas qofkii dhageysto ku cibra qaata oo intuu fiiriyo kelimad u dhuuxa way ugu filan tahay cibra qaadasho ku saabsan qabriga way ugu filan tahay marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu naxariisto waxaan leeyahay inta dhageysata ka faa'iideysta gabayadiisa kuwa qabyaalada uu kaga hadlayo waxa maanta Soomaaliya halka dhiga qabyaaladii qurun weey kuwa uu kaga hadlayo daroogada iyo jaadka iyo dhibaatada ay leedahay kuwa uu kaga hadlayo aqeedada wanaagsan iyo tawxiidka uu kaga hadlayo marka faa'iideysta oo ka faa'iideysta una duceeyo sallallahu alayhi Allah ku barakeeyo sheekhana adoo intaada ka bixin magaca bacadle muxuu ku yimid dukaan bacadlu lahaa meeshan wuxuu ku lahaa magaalada Muqdisho meesha maxay suuqi siinay la oran jiraan filaya inay ahayd xamrweynina waa ku lahaa marka bacadlaha dharka lagu gado ayuu lahaa marka abshir waa magaciisa nuurna waa aabbihiis faaraxna waa awgiis abshir nuur faarax weey bacadle waa naynaas ka qabsatay shaqadii uu hayay dukaamadii iyo ganacsiga ku jiray oo dharka iyo waxaas weey Allah ku barakeeyo sheekhana su'aashana kale waxay tahay maadaama uu yahay ninsaas bulshadii u anfacay dhan adduunyo dhan aakhira khayr ka badanna bulshada horbooday dhimashadiisa maxaad nooga sheegi kartaa goormay ahayd dadkii inaad dib u xasuusisay
2010 bishii tobnaad xanuun miyuu dhintay inay ahayd baan filayaa waa caafimaad qaba soo dukaankiisa ka soo shaqaystay oo caafimaad qaba ilaahay sakaraad kuma dhibin silic ilaahay kuma dilin isagoo soo shaqaystay oo wanaagsan oo gurigiisa soo aaday habeenkii jooga xaq gurigiisa baa wadnaha laga qabto aakhir gelikii dambe inahayd baan filayaa waaba naf baxay intaas ahayd galabtii markay ahayd galabtii dukaankiisa uu joogay nin buu yidhi lacag isii ay qaraabo yihiin dayna 3,000 iyo inay ahayd baan filaya meelahaas markaasuu wuxuu ku yidhi ii qor hadda inaad dhimataa laga yaabo caawabe waa dhici karta ii qor markaasuu yidhi war u qor dayntaas inaan ka qaatay habeenkiina waa dhintay subaxdiina waxaa ka soo qayb galay khalqi ilaahay magaalada muqdisho inta ugu badan waxaa isdhihi karaa janaasada ugu badan oo lagu tukaday oo anigu inta aan la socdo waa janaasada ugu badnayd ee laga soo qayb galay ummaddu ay ka soo qayb galay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala cimrigiisa intii uu noolaa ilaahay wuu u barakeeyey inuu dacwada iyo khayrka iyo danaha caamka u ka shaqeeyo abulmasaakiin buu ahaa masaakiinta aabbaheed baa la dhihi karaa waayo dadkii suuqa joogay baa ka markhaati ka cahaya maalinkuu naga dhinta agoon baa noqonaya dadka wax ka soo barta sheekhan hadda culimmadiisa runtii markii uu sacuudiga joogay raggii uu ka faa'iidaystay ee sacuudiga ugu tegay anu ma aqaano wax badan kama garanayo isagana kama waraysan in badan muqdisho kale sheekh nuur culumni sheekh la oran jiray oo wax ku akhrin jiray meelaha qaarkood dadkii aad uga faa'iidaystay uu kamid ahaa mashaayikh kale waa laga yaabaa dhinacaasi qalaafi mustaxiil halkaasna barbaarintiisa iyo koriinadiisa halkaas ay u badnayd halkaas ay ahayd markii hore isagoo uurka ku jira aabiis dhintay aabiis muusa arag warku harbu ahaa markii dambana hadee waalidka markuu u xajiyay waa ka gabaygiisa kusoo darahaya ilaahay u dhaaftaan kacbada uga dhawaaqahay dhismihii kasta oo khayr leh baan dhagax u saarahay markaasuu ahaa baarak ilaahay barak allah ku barakeeyo waxaan rajaynayaa walaalaha Soomaaliyeed ee daawanaya muuqaalkan inay dhankooda uga soo duceey doonaan khayrkii iyo wanaagii uu ka dardaarmayna ruux waliba inuu meeshiisa ka sii wadi doonana insha Allah ta'ala waa rajaynayaa ubadkiisa adduunka jooga xilligan ee na dhageysan doona ee maqli doona warkeenan ama taariikhdiisa abood aan ka waramaynana in ayakana insha Allah ta'ala ay u duceey doonaan xasuusan doonaan in la xasuusiyay bulsho Soomaaliyeed badan maantay oo na mootay waqti aad u badan oo dhintay in bulsho Soomaaliyeed xasuusato una duceeyso insha Allah ta'ala khayr baan ka rajaynayna anaka oo soo bandhignayna insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa ee walaalaha sii shagaray doonaba inay khayrka mid la mid heli doonaan insha Allah ta'ala ducooyinka loo duceey doonana inay qayb ka noqon doonaan anakana aan wax ka heli doono idanka alle ajarkeena aan heli doono intaas ayaan jeclaaday barnaamijkeeni qaaska ahaa oon ugu waramaynay Allah u naxariistay abshir bacadle loo yaqaano intaas ayaan jeclaanay inaan ku soo koobno barnaamijka qaaska ahaa intaan dib dambe isaga imaan doono wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh